hadhow ayaan qaban doonaa. Waxaa laga yaabaa maalinkii mar ama 2 jeer inaad isticmaashid kelmaddaas ama ay ku jirto qanuunka noloshaada. ganacsiyo badan ee la sameyn lahaa, buugaag badan ee la dhameyn lahaa, riyooyin badan ee la rumeyn lahaa, iyo safar badan oo la bilaabi lahaa waxay u baaqdeen in dib u dhig lagu sameeyey. bari lala sugaa waqtiga saxda ah. Maanta waxaan ka hadlaynaa 10 qodob ee naga caawinayso in aan caadadaas nolosheena ka saarno dib u dhigga. Dib u dhigga waxaa la dhahaa waa cadowga koowaad ee riyeenta rumadaada ka hortaaga. waxyaalahan ku sameyn karno si aan nolosheena uga saarno. Qodobka koowaad waxaa waaye aan waxyaalaha aan qabanayno aan u qaybino qaybo. Tusaale waxaa laga yaabaa maanta inaad akhrisid buug 40 page ah. buugaas marka 40 page ah inaad 10 page u qaybiso. 10 page intaad akhrisid kadib intaad baxid soo noqotid 10 kale haddana 10 kale. in marka aan qaybino. qodobka labaad oo muhiimka ah asaga wuxuu yahay inaan horta aan aqoonsano waxaan aan qabanayno sababta aan qabanayno maxaa waaye. waxaa laga yaabaa inaad koorsaan maxaa u baranaysaa, gaari wadistaan maxaa u baranaysaa, maxaa ganacsigan u bilaabaysaa, horta waxaan qabanaysid sababta ka dambaysa maxay tahay inaad ogaatid. qodobka saddexaad waxaa waaye inaad u sameyn wax loo yaqaano deadline, waqti xadidan, waqti hebel bishan koorsaan dhiganayaa iyo waqtigaas. marar badan waxaa laga yaabaa inaad maqashid deadline-ka koorsada way xiran tahay, shaqada interviewga way xirmatay inaan maqasho laga yaabaa. marka qodobka saddexaad waxaa waaye inaan sameyno in waqti aan ku xirno oo waqtigaas 4 saacadood 3 saacadood inaan isbuuci saacad ka mid aan barano in waqti xadidan aan u sameyno oo ah nidaamsan. qodobka afraad waxaa waaye nafteena inaan u dhimrino. marar badan waxaa laga yaabaa in shaqooyinkii nafsada laga rabay ee qaban weydo, marka haddii qaar ka mid ah qabato in loo naxariisto. qodobka shanaad waxaa waaye horta inaad hoose ka xiriirto oo ogaatid maxay tahay waxa kugu sababayo in aad dib u dhig ku samayso howlahaaga. waxaa laga yaabaa inay tahay emotionkaada ama moodkaada oo qaldan. waxaa laga yaabaa inay tahay in xanuun aad dareemaysid. waxaa laga yaabaa in Facebook ama fariimaha fara badan ee internetka aad ka helaysid aad ku badan oo inaad ku mashquulsan tahay. horta inaad hoos ka xiriirtid waxaan maxaa kugu sababaya inaad hawshan dib dhigto maxaa kugu sababaya inaad ogaatid. qodobka lixaad sidoo kale waxaa waaye in aan taleefankeena aan iska fogeyno, sidoo kale aan ku xirano taleefanka wax loo yaqaano timer, waqti inaan ku xirano, waqti heblaay si oo nooga yarato wax loo yaqaano dhexgalka. ilan haddaa Facebook fariin kasoo dhacdo, WhatsApp kasoo dhacdo, YouTube kasoo dhacdo, TikTok kasoo dhacdo, fariimo badan aad sugaysa isoo dhacaan, waxaa laga yaabaa shaqada ay haysayba intaa ka baxid inay shaqaas aad qabatid. marka inaan iska ilaalin intaas hawshaas aan qabanayno. qodobka toddobaad waxaa waaye in nafsadeena aan la xisaabtano. qodobka 8aad waa qodobka aan ugu jeclahay. waxaa waaye qodobka 8aad in nafsadeena aan abaalmarino. waxaa laga yaabaa in wax aad jeceshahay koorso aad jeclid inaad dhameysay, khatmo quraan inaad samaysay, in ayaantaan caado wanaagsan oo aad rabtay inaad samayso jimicsi ama jim in aad oo kale in nafsadaada markay howlaha wanaagsan ee qabata aad abaalmarisid. waxaa ku abaalmarin kartaa waxa ay jeceshahay, inaad maqaayad tagtid, inaad wax kasoo jeceshahay. xataa ugu yaraan waxaa ku abaalmarin kartaa shukulaato ay jeceshahay inaad usoo gudid, qof ay jeceshahay kale inaad la xiriirtid, waalidkaaga kale ama waalidka ka farxisid. muhiimadda waxaa waaye in nafsadaada aad abaalmarisid oo ku abaalmarisid waxyaalaha ay nafsadaada jeceshahay, waxa aad ku raaxaysid inaad samaysid. qodobka 9aad isagana waxaa waaye in aan waqtiga shaqo walba waqtigeeda inaan ku sameyno. qodobka 10aad ugu dambeeya muxuu noqon karaa kula tahay in aan samaysano wax loo yaqaano in aan maareyno waqtigeena. haddii aad rabtid inaad si fiican aad ula socoto maareynta waqtiga, waxaan ka diyaarinay muuqaal. waxaan jeclaan lahaa muuqaalkaas inaad daawato, si fiican ayuu kaaga caawin karaa in waqtigaada aad maareyso. asalaamu calaykum, waa mahadsantihiin.